xaflad si aada loo soo agaasimay oo lagu maamuusayay sanad guuradii saddexaad ee ururka dhalmadoonka Soomaaliyeed ayaa ka dhacday magaalada Minneapolis. xafladdaasi oo ay soo qabanqaabiyeen ururka Isku Roon ayaa ugu horreyntii halkaasi waxaa ka soo qayb galay jaaliyad Soomaaliyeed oo rag iyo dumarba lahaa aadna u xiiseynayay barnaamijkaasi halkaasi lagu soo bandhigayay. waxaa xafladda ugu horreyntii ka hadashay madaxa xafladdaasi Fartuun Wali oo iyadu ka sheekaysay aasaaskii ururkaas la magac baxay Isku Roon ee ururka dhalmadoonka Soomaaliyeed loo yaqaano. kadib halkaasi waxaa ka hadlay dhakhaatiir iyo aqoon-yahano aqoon u leh helitaanka iyo waxyaabaha ubadka iyo waxyaabaha keena dhalmala'aanta. waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Mark Demario oo isagu aad ugu dheeraaday waxyaabaha sababa dhalmala'aanta iyo sida xalka loogu heli karo. dhakhtarkaasi ayaa markaasi waxa uu halkaasi ku soo bandhigay siyaabaha markaasi xalka loogu heli karo haddii ay noqon lahayd habka tallaalka oo ragga iyo dumarku ay markaasi awlaadda isugu tallaali karaan iyo weliba sida loo maarayn karo cudurrada halista ah ee keena dhalma la'aanta. waxaa iyana halkaas ka hadashay Rosie oo iyaduna sheegtay in ay lagama maarmaan tahay in la dhagaysto dhakhaatiirta. waxaa halkaas ka hadashay Mrs. Mary oo iyadu ka hadashay cudurrada halista ah ee keena dhalma la'aanta amba awlaad la'aanta kuwaasoo ku tilmaantay cudurka gonorrhea amba jabtada isagu la yidhaahdo iyo sida ay sheegtay inuu yahay cudur sahlan oo markaasi la daweyn karo laakiin ay nasiib darro noqoto haddii markaasi aadan la soo xiriirin dhakhaatiirta oo uu markaasi cudurkaasi ku fido xubnaha taranka kaasoo sababi kara ayay tidhi awlaad la'aan mustaqbalka ku habsata shakhsiyaadkaasi haddii uu dumar yahay iyo haddii uu labood amba rag yahay. hadafka Isku Roon waxaa in Soomaali meel walba ay joogtaba ay wax naga faa'iideystaan laakiin organizationka wuu yaryahay waa 3 sano jira. ta kalena waxa weeyaan 3 sano haduu jiro organization waxay qaataan almost 5 sano 6 sano intay ay noqdaan organization weyn oo information meel walba gaarsiin kara. marka hadafkeena waxa weeyaan 2014 insha Allah inaan wadankii tagno oon cilmigaani waxaan baranay aan geeyno insha Allah oo dadka saaciin inta ka horeysana website-kii waxaas informationada gelinayna insha Allah. waad maqlaysay oo takhaatiirta waxa ay sheegeen in dadka qaarkood cudurrada ay qabaan ay qarsadaan markaasna ay sababto in markaasi ay aakhir mustaqbalka ay dhaxlaan awlaad la'aan. marka dadkaasi maxaad kula dardaarmi lahayd adoo u marinaya telefishinka qaranka? waxaan kula cudurradaas waxaa cudurrada galmada ka imaaday ahayn cudurradii dhakhtarada ay ka hadashay kaasoo ah in wax ay dadku qarsadaan. gabadhii ma dhihi karto in galmaan sameeyay oo cuduraan ka soo qaaday kaas darteedna way ka cabsanaysaa xitaa inay dhakhtarka u tagto ay daawo raadsato wiilkiina sidoo kale. marka waxaan sheegaa inaad la raadsado daawada wadankii uba hadda iska xun yahay oo daawo jirinin laakiin isbaar haddaa dareentid waxyaaba inay kaadida ku gubayso kale haddaa wiilta haddaa gabar tahay isbaar and then amrilaa kuma darinine waa ka hortegaysaan caabuqada ama scar tissue-ga ay keento cudurrada galmada keena marka isbaara. ugu dambayntii halkaasi waxaa takhaatiirta lagu weydiiyey su'aalo ku saabsan sida looga hortegi karo cudurrada halista ah. shiro warsamo galbeedka telefishinka qaranka Soomaaliyeed Minneapolis America.